إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أركتين مصيبة كدعوة سعودي عربية تاس مصيبة اللي كرا سو محلها سعودي عربية سنة كسر على وقتها حفلتها سو محلها يوم قاعدين موسم الرياض oo lagu qabto caasimadda Riyaad laakiin sanad kaleeto waxaan ku dhahay waxyaalihii hore wax aad uga sii daran ay keenaan sanadkan waxay keeneen dhalo oo sida kacbada camal u samaysan kulay ayaga waxay leeyihiin yani mujassam oo yani kacbada shabaha dhalo waaye laakiin sida kacbada camal u samaysan tahay waxa la dhax dhigay masraxa meesha lagu heesay dhaxdiisa ayaa la dhigay kadib dumarkii xafladda maxallahaayay kuwii heesay kuwii ciyaarayba igoo qaqaawanay waxay sameynayaan way ku kor wareeganayaan yani maxallahaay subxaanaka yaa cadiim in diinteena iyo maxallaha qiblada sas loogu ciyaaro wallahi aada ugu xumahay qiblatul islaam waa sacuudi carabiya xaflad haba dhigtaan laakiin si caadi haday yani si caadi ummadda ay u dhigtaan inay u dhigtaan laakiin in lagu jeesjeeso kacbada lagu jeesjeeso oo sida kacbada waxaan ku dhahay loogu dafaafay loogu dawaafo oo waxaan ku dhahay waxyaalo yani munkar kii ugu xumaa meesha lagu soo bandhigo waxaaba uga sii daranba in maxallahay naagta inay cabaayad banaanad caan ah waaye cadaan ah magaceeda aniga ma aqaano cabaayada meesha ku soo galay cabaayad markay ku soo gasho waxay sameynaysaa markay masrax soo istaagto cabaayadii way fintay siisa dadka wajiga ugu dhufanay sarxadii way fasiinay waxaan ku dhahay yani jees waddankoodii lagu bahdilooyaa ayaga ma aqaanaba ciyaar may u malayaan waxaas kulay canug saqiir xitaa ma qaadan lahayn in maxallahay sas loo bahdilo waa iska qosqoslayaan markaas u sacbinayaan xasbi allah wa ni'mal wakiil waxaan ku dhahay asal allah alcadiim rabbul arsh alcadiim musiibo degdeg ay ku toobad keenaan inuu ilaahay tuso aan ilaahay uga baryaa sababtoo ah wax loo dul qaadan kara ma ahan qiblada muslimiinta waaye meesha maanta kulligeena aan u jihaysanahay oo u sujuudno oo u jihaysanahay aan ku tukanno oo yani hamigeena xitaa mustaqbalkeena inaan tagno aan xajino cimraysano yani meesha aan u hogaansanahay waaye marka in meeshii ay noqoto meel maxallahay waxyaalaha noocaas munkarka noocaas lagu soo bandhigo sanad kasta wallahi aadaan ugu xumahay ilaahay sallallahu alcadiim rabbi yahdihum ilaaha soo hanuuniyo ilaaha aslaxo wax ay masiibo ay ku toobad keenaan bini aadanka horta waxa waaye faqfaqdiis markay badato waxa fiican in dhab la siiyo meel ka xanuunsanay laga qabto hal zilzaal haduu dhac ku dhigi lahaa waxaan u maleyn lahaa inay toobad keen lahayn ama masraxa uu zilzaal uu ku dhici lahaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka bini aadanka wuxuu siinayaa fursad hadday xumaan samaynayaan iyo hadday wanaag samaynayaanba ayagaa lagu baroobaynayaa sow ilaahay waxaan ka bari sanadka soo socda inuusan arrinka noocaan oo kale meeshaas uu ka dhicin oo ilaahay xal min cindigiisa uu ka keeno waa idin salaamaya dhammaantiin